kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada qisadii jaceyl ee mahad iyo maandeed qaybteedii 14 oo xiise gooni ah leh caawa balse daawada intaan u gudagalin qaybtani waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkani aad hadda daawanaysid like inoo saarto siina share gareyso halka gududan ee subscribe-tana aad taabato qaybtii hore waxay noo joogtay dhakhtarkii oo baaritaan ku sameeyay maandeeq isla markaana la wadaagay reerkeeda in ay gabadhooda uur leedahay iyo reerkii oo arintaas ay ku noqotay argagax iyo amakaag ilaan gabadhooda wax nin ah kuma ogeyn oo gabar ayay u aheeday kusoo dhawow qaybta xigta oo hin waxba tari maysa dadkii meesha joogay ayaa hooyadii qalbiga u dejinaya oo leh hooyo maandeeq waa ilmo yar way qaldantay iska samir ilaahay caruurta inoo hagaajiye kuwa kalena waxa ay leeyihiin hooyo isdeji waxa laga yaabaa maandeeq in la mehersaday yaan la degdegin bal waxa la hubsado maandeeq jaceylkii iyo dhaawicii way ilowday wax walbana waxa ugu darnaaday uguna xanuun badnaaday subcad xumad ay u soo jeeday labadeeda waalid hooyii aab iyo sida ay ugu tiir iyo tacab beeleen waxay isleedahay naftaba yaa ka qaado iyada oo ka sheekeynaysa maalintaasi sida ay noqotay waxay tiri geeridu way ii fududeeday waxaanan islahaa in dadka isdila dhibkani oo kale ayay arkeen waxaan ka fikrayay si ay naftuba ii deyso waxaan islahaa yaa ku dila maalintaasi haddii aan ogaan lahaa meel nafteyda aan ku waayi karo aniga oo aan isdilin xaqiiqdii waan aadi lahaa gabadhii saaxiibteed ahayd oo ay wax walba u sheegtay ayaa tiri gabadha nin ayaa si xun u galay qisadii ayayna u sheekaysay dadkii waxayna tiri maandeeq mar ayay qaldantay kun marna wanaag ayay samaysay ee ilaaliya aabaheeda oo meesha ka maqnaa ayaa soo gaaray marka uu saa u soo galayba wuxuu dareemay in ay wax isbedeleen maxaa jira ayuu yiri si calaacal ah ayaana mashaqada meesha ka dhacday loogu sheegay inta naxdin uu la gariiray ilmaduna ay sida roobka indhihiisa ugu soo daateen oo kursi meesha yaalay salka saartay ayuu tiriyay gabay jacbur ah sidaani ayuuna yiri maandeeq gabadhaydiyey maxaan dhibta ka ilaashay mustaqbalkaaga maxaan ku daalay anoo maradayda eegin maxaan kuwaaga iibshay anoo maankayga buuxsan maxaan adikaaga buuxshay mirleyl anoon hurdo seexan maxaan adiga aan ku seexshay murugooyin anoo i haysato maxaan hankaaga ilaashay dadaan waxaana haysan maxaan horay kuugu keenay hami baan kaa lahay aabo hadaf baan kuu dhisayay aabo maanta halka ayaa ku seexshay gabayga micnihiisa oo kooban wuxuu ahaa waan ku soo koriyay waan kugu dadaalay waxaad u baahan tahay waan kuu sameeyay waan ku ilaashanayay waana kugu faani jiray waayo ninka saa kuu galay ee silicaani ku marsiiyay la soco qaybtii xigta hadduu rabbi raali ka noqdo daawada ha ilowin inaad muuqaalka laag saarto siina share gareyso wixii fikri iyo dhiirigelin ahna waxaad noogu reebi kartaan qaybta hoose ee commentiga